anigu ilmahayda iyo diintayda iyo dalkayda Maraykanka waxaan ku aaminayaa Donald Trump kuma aaminayo qof kale waa ilmahayda iyo diintayda iyo dalkaydaba Donald Trump baan ku aaminayaa waxa sidaas yiri aabba Soomaaliyeed oo degan dalka Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota arrimihii beegsiga Soomaalida lagu hayay ayaa wali taagan dooda ayaa wali socda kulamo ayaa socda baaqiya ayaa soo baxaya abaabulo ayaa socda looyaro ayay Soomaalidu qabsadeen waxa ay isku dayayaan dadka waxgaradka iyo dadka social media isticmaala ama warbaahinta bale in ay Soomaalidu mideeyaan jiheeyaan oo ay tusiyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen beegsigan qaawan ee tooska madaxweynihii dalka Maraykanka uu ku hayo dadka Soomaaliyeed cadaadisku waa la sii laba jubaarmaya ciidamada ICE ayaa lagu soo daadiyay meelaha Soomaalidu ay degan tahay suuqii weynaa ee Carmel waa xidhan yahay baarayaal heer federaal ayaa loo soo diray oo leeydi kuwa sharciga haysta iyo kuwa sharciga aan haysanin baara oo ka qabta Soomaaliduna wali waxaad moodaaba inay hurudo halka qaar kalena ay leeyihiin wi caruurtayda iyo diintayda iyo dalkaba Donald Trump baa lagu aamini karaa ay taagan yihiin bal wax yar horta muuqaalkan ila daawada anigu ilmahayga iyo diintayda iyo dalkayga Maraykanka madaxweyne Trump baan ku aaminsana Donald Trump aabihi baa dalkan yimid wiilkaygana ana dalkan imid uga soo horeeyay labadooda waa siman yihiin wuxuu Donald Trump ka baryaayay ma jirto dareenka madaxweynaha hadallada uu dhahayo maxayna gaarsiinayaan waxa inooga daran baan qabaa baqdin baa la geliyay dadka Soomaalida ku saabsan Trump waana loo caga jugleeyay nin baa darbiyada loo gargaraacay Trump aabihiis wadankan soo qaawan buu yimid awowgiis yimid maanta Carmel saan waaye aysa soo daatay guys hey meeshan waa la isku soo yaacay halihii afka duubnaa iyo halihii afka furnaaba wajadiin ya wayay muuqaaladaasi dhowrka qaybood ka kooban waa dhageysateen waad maqlaysaan suuqi Carmel mall waa xidhan yahay ee Soomaalidu ay ka adeeganaysa mallkii weyna waa xidhan yahay ICE ayaa lagu soo daadiyay labadii maalin ugu dambeeyay lama furin saameyn xooggan bay ku yeelatay shacabkii Soomaaliyeed kuwa baasaboor kale iyo kuwa aan baasaboor waxba haysanin ba labadaba isku mid ayay maanta wajahayaan waa xaalad aad iyo aad run ahaantii u adag Trumpna wuxuu ka dhabeeyay go'aankiisii ahaa Soomaalida in uu ciriiri geliyo Soomaalida inuu ciriiri geliyo hadda dadka sharciyada leh waa la qaban qofkii sharciga waa ka soo tagayba waa la qabani markii la qabto laba maalin baa lagu haynayaa xabsiga inta sharcigiisa laga keenayo lagu xaqiijin baa leeyahay waa cadaadis waa sharci jabin waa bahdil lagu sameeyo oo sharcigiisa waa la arkayaa sharciga lambarka bas aad sheegan kartaaba oo waa la arkaa laakiin maxaa lagu xidhibayaa waxa lagu xidhibayaa lagu xayirayaa lagu cadaadinayaa qofkan Soomaali inuu yahay baa lagu dhibaataynayaa bale waliba sidoo ku yimid baa la baari in la yiraahdo oo waxa laga yaabaa sharciga lagala laabto oo jeelka lagu hayo oo la yiraahdo habkii aad ku timid shiki badan baa ka jira warqad baad soo hilmaantay sidan aad samaysay halkaas aad ka soo booday su'aalaha lagu weydiiyay si fiican ugamada jawaabin tashuush baa lagu furaya waadigi baasaboorka lahaa ee sharciga lahaa way kii sharci aan lahayn isagu warba malaka isagu waa hilib bisil oo la kariyay oo waliba saxanka lagu soo saaray adoo baahan way waa si fiican baa ka isagu loo qaninaya dib dambe looma arkayo meelaha ma laga soo tuuri uu marka hore ka yimid marka halis weyn bay Soomaalidu wajahayaan nin waalan baa toosh loogu ifiyay nin waalan baa toosh loogu ifiyay toosh baa loogu ifiyay dadkii Soomaaliyeed halistaasay horta ku jiraan meel walba ka yimaadeen ba waa Soomaali inta markii laga soo tago cadaadiska socda ciidamadan ICE lagu daadiyay magaalada cabashadan iyo cabsidan xooggan iyo cagajugleynta Soomaalida loo geystay markii laga soo tago Soomaalidu laba arrimoodba waa socotaa kulamo doodo shirar wada hadal maxaan sameeynaa way socotaa waxaad moodaa markay inta bilaabatay in Soomaali ay soo baxday taageersanba Trump iyo hadafkiisa
markay intaa bilaabato kulamadu bilowdeen Soomaali taageersan oo Donald Trump la dhacsan oo xisbigan iyo tallaabooyinkiisaba la dhacsan ayaa soo baxday waxa kale oo soo baxday guruubyo ay isla shaqeynayaan oo ayadana dadkii Soomaaliyeed jaajuusaya oo Twitter ama X meesha la yiraahdo Twitter la dhijiray ku jiro qolal ka samaystay magacyo gaagaaban samaystay dadka jaajuusaya dadka caanka waxa weeye farta ku fiiqaya ayaaba soo baxday bayagana waa halis kale oo aad iyo aad u weyn weeyo ka daranba Trump sababtoo Trump Soomaali bay u tahay laakiin ninka kula jooga ee ka shaqaysanaya ee kula shaqeynaya kaas baa ugu daran waa nin kula shaqeynaya kula jooga ka shaqaysanaya oo waxa weeye adiga ka shaqeynaya oo cadawgu kugu jaajuusaya kuwa noocaas ah haddana soo baxay oo dhibaato ku ah bulshadeena Soomaaliyeed waxa kamid ah aabaha Soomaaliyeed hadda hadlayay maqlaysan waxa uu yiri oo uu leeyahay aniga carruurtayda iyo diintayda iyo dalkayda Mareykanka waxaan ku aaminayaa Donald Trump aniga cid kale kuma aaminayo Trump aan ku aaminayaa waliya Trump ayaan ku aaminayaa cid kale oo aan ku aaminayo ma jiro bal yaabka dhacay ceebta dhacday inkaarta dhacday bal eegadu waa aba Soomaaliyeed wuxuu leeyahay anigu xisbigan baaban anigu jamhuurigan taageersanahay nooga fiican xisbiyada kale nooga wanaagsan ayuuba taagayay war diinta Trump oo lagu aaminayo maxay diinta anagu ma haysano diinta Trump lagu aaminayo anagu ma haysano taayada diinta Trump waxa weeye ilaalinayo anagu taa ma haysano midana waa midda guruubyadan kale ee socda iyagu waxay sameynayaan adigan bay ku taageeranayaan halka joogtay ogaanayaan waxay fiirinayaan waxa weeye gurigaaday dabagelayaan halka degantahay bay dabagelayaan waxa laga yaabaa inay ku ballamiyaan kaalay shaacane meesha imow waa ku marti qaaday bay ku leeyihiin way ku soo dhaweynayaan ice baa lagu gacan gelinaya dhab waa lagu qabanaya waa lagu la kacaya waxa la rabaa marka dadka noocaas ah inay laga feejignaado ila iska ilaaliyo Soomaalidu ay is ilaaliso oo waxa weeye la is ilaaliyo loo baahan yahay dadku ay is ilaaliyaan Trump waa diyaar garoobay afkariya ma aha hawshiisu waxay maraysaa baraka male Soomaalida waxa weeye inuu qaqabto tarxiilo ayaa ka go'an laakiin dalku sharci buu leeyahay Trump wuxuu ka yidhi waa ka ballaaran yahay kuwa haddaba sii gelayo sidan dadkii la qabanayay sii gelayaan Trumpna afkiisa kaliya dalka laguma maamulo shuruuc iyo sharci baa u dajisan afkan cadaadiska iyo ciidamadan uu soo amray intaas culays ugu keenaysa cabsida inta iska deysaan dadka sharciyada leh Soomaalidow intaad is urursataan loo yara qabsada maxkamada fura ninka maxkamada ku fura waa in ninka maxkamada lagu fura weeydi dhaqaale la isku dardaro adag la ururiyo dhaqaale wada haysataane ninka maxkamadaha lagu furo oo maxkamadaha laga dacweeyo oo isaga qaylaha la geliyo oo cadaadis la geliyo oo dalka la abaabulo oo dibadbaxyaha la sameeyo oo caalamka la tusiyo inuu yahay nin xun oo dalka Mareykanka gabi ka tuurayo ku celiyay meel dadka lagu cusureeyo lagu dhibaateeyo in waxa la rabaa ninka lagu celiyo